barnaamijkan oo ahaa mid aad u ballaaran isla markaana ay soo qaban qaabiyeen bulshada noocyada kala gedisan ayna ka soo qayb galeen odayaasha golaha dhaqanka ururada dhalinyarada kuwa hooyooyinka arday ka kala socotay iskoolaadka ku yaala degmada Caabudwaaq iyo dadweyne kale oo fara badan ayaa maanta lagu qabtay mid ka mid ah fagaarayaasha ku yaala degmada Caabudwaaq barnaamijkan oo ahaa mid looga soo horjeeday nidaamka 4.5 isla mar ahaantii lagu taageeray laguna soo dhaweynayay maamulka dhawaan la doonayay in laga hirgeliyo waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa qaar ka mid ah dadkii maanta dibadbaxan sameynayay waxay soo bandhigeen waxyaabaha ay ka godoodsan yihiin iyo sidoo kale ujeedada ka dambaysa in maanta dibadbaxan ay soo qaban qaabiyaan nabadoon cali wali xaashilka dahab nabadoon darawal cali faray nabadoon ximbil iyo nabadoon cabdullaahi guuleed waxay ka mid ahaayeen dadkii maanta ka hadlay dibadbixii looga soo horjeeday nidaamka 4.5 waxaan leedahay waa diidanahay 4 meelood iyo barka waa qodob gobolada dhexe dad waxaan nahay Soomaali oo fayuura oo midnimada jecel oo walaalahood jecel qabyaaladu ugu jirto waxaan leenahay Galgaduud sare Caabudwaaq ay joogaan waxaan rabnaa dadka tagay ayar inuu dadku ka mid noqdo ayagoon ay tamin war gurigooda aan ku soo laabtay waxba xagga ma faa'iideyn annagana ma matalaan ugaaskii baa jooga odayaashii baa jooga dhalinyaradii baa joogta culimadii baa joogta intaasaa ka hadlaysa dibadaha dadka jira waa ogeysiinaynaa ka qayb qaataan leenahay barnaamijka sameeya ka hadla 4.5 naheedu waxaa weeye Soomaaliya inaysan qabiil ka madax bannaanin caalamkana lagama helo qabiil dawlada annagu qaran baan u soconnaa umar soconno meesha beelaha uma soconno waxaan rabnaa Soomaaliya in qaran ka soo baxo macnaha lagu wado 4.5na nin jeefkii uu rabo inuu wax ku helo weeye iyo qabiil mana yeelayno haddaan nahay waqooyiga Galgaduud waa ka soo horjeednaa 4.5 nidaamka la yiraahdo ugu dambeyntiina ugaas Ahmed Baracali ugaaska beelaha waqooyiga gobolka Galgaduud oo ka mid ah dadkii maanta dibadbaxana ka soo qayb galay ayaa isna halkaas ka hadlay ama lagu taageerayo maamul sameynta gobolada Galgaduud sare lagu taageerayo maanta ka soo qayb galay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meel ay jirtaba hadday tahay hadday kismaayo tahay hadday dibadda tahay hadday samuudu tahay hadday duub tahay meel ay jirtaba 4.5 waa qaadacday mana wax uma qaybsanay Soomaaliya ha ogaato dibadbaxan maanta ka dhacay degmada Caabudwaaq waxa uu ka mid noqonayaa dibadbaxyada ugu ballaaran ee abid ka dhacay degmada Caabudwaaq kaas oo ahaa maanta mid ka duwan kuwii hore isla markaana shucuurta dadku aad u kacsaneed loogana soo horjeeday nidaamka 4.5 oo wayaha dabaqayl dhaantiisa iyo sidoo kale sawaxanka 4.5 ay ku badanaysay gudaha dalka Soomaaliya degmada Caabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxay sidoo kale hore ugu diiday nidaamka 4.5 ee awoodda wax qaybsiga qaabka beelaha ee la doonayay wax lagu qaybiyo Soomaaliya sanadda 2016 marka ay dhamaatay dawladda federaalka Soomaaliya ee iminka jirta Mahad Xasan Diini